maamada guriga iskale ninkeeda hooyadii iyo aabihii gurigeeda idan weydiisan maayaan lianna ninkeedaba iyaga iskale nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri anta wa maaluka li abika nin buu la hadlayay wuxuu ku yiri adiga iyo xoolahaagaba aabbaha idin leh hooyadu waa ka sii xaq weyn tahay ya hadiiba ninkaagii la yeeshay oo hooyadii leedahay ya ninkaaga cidii lahayd seeba guri loogu diidi isagii baaba la yeeshay wa mid labaade haddii adiga laf ahaantaada hooyada ah waalidkii ninkan dhalay inta lagu afgaran waayo ay ku yiraahdaan waryaa middan inama anfacayse fur waa lagu eri marka hooyaan guri u diidi idan hal ay weydiisto guri kale loo kireeyo ay sharcin hada qaraabo goysnimo inta leeg waxa laga hadlay hadana waa waalid waxa laga hadlay hadana waa waalid waay qaraabo kale xataa haday ahaan lahayd بعد شر أهون وإسلامي له لكن والد كيف أقولي قال له ديديو إذا هو يديستين وثقافة إيوه دقن إنه يميدو سو قوري واي ودقن لسو من قوري وأنا هين كي إسلامك أنا أهين كي بلشدة إنه أي لهان شرتي ورميين لهان شرني ما دقن وحن لهان شرني هو يملك الهلور هذه الليلة ما أم حاجة حاسك هكتي مادو أم حاجة هنينك هكتي مادو hooyo gogasha ugu wanaagsan baa loo dhigaa cuntada ugu wanaagsan baa la siiyaa guriga idan ma weydiisato iyada iskale aaba waa sidoo kale ama dhanka xaaska ha ka yimaado ama dhanka ninka ha ka yimaado waalid baa idan weydiisanay adari dhaaf meel kale u kiree naagta sida qabtay in la eriyo waay in la fiijiyo waay taas naag ma xaas ma hadayna waalidkiiba ogolayn oo gurigiiba ka sheemayso u diidayso xaaskaasi muxuu yahay yaa malaha naag cadaan aad qabtaan naag Yurubiyaana ma soo guursatay gabadha Soomaali ma aanu malaynay waxaasi dhaqan ma la dhaqankeena islaamkana ma aha wala dhaqan diinteena ka soo jeedana ma aha waalidku madaxu saaran yahay xaqa ilaahay siiyo waa xaqiisa midka ku xiga ma garat xoolahaaga waalidkaaba iska leh الإمام أحمد عليه رحمة الله وحده ليه حتى إنه باهيدي سحولها كقات كريه ماه حولها إنتو قبضوا وحكسر قيس كرا والدكم الضون هذا كوتشو كتب والدك أبو حرين كرا أنسقون إذا كويتي سنة الإمام أحمد في كتاب الورع مساكوليه مركا ويا أبي قبله ويلش يبقى دوده وقوليها تيك توك كوتشرا ونبيته يتكلم مقوى صدود ده سدحت الله kuwaas waxaan u maleynaa waxaan ugu cudur daaraynaa islaamka kama warhayaan dhaqan islaamna intooda badan kama warhayaan mushkilada ay sabta waxa weeye doodaha waxa keenaya thaqaafada iyo dhaqamo kale la soo maqlay la soo arkay markaas waxa weeye guriyihii islaamka la doonaya in lagu maamulo wax fool xun waaye naam